kusoo dhawaada waa barnaamij gaar ah oo ay iska kaashanayaan jaamacadda gobolka Minnesota xafiiskeeda extensionka iyo idaacadda KZYSLB ee laga dhageysto magaalada St. Cloud. magacaygu waa Axmed waxaanan idinla socotiin doona barnaamijkan muuqaalka ah ee ah cunto karinta caafimaadka qabta. kusoo dhawaada. jaamacadda gobolka Minnesota xafiiskeeda extensionka iyo idaacadda KZYSLB ee Soomaalida ee magaalada St. Cloud ayaa waxay iska kaansan doonaan barnaamij loogu magac daray sababaha loo iibsado cuntada ka soo gooda beeralayda deegaanka. barnaamijkan oo ah taxane ah ayaa waxa uu ka bixi doonaa idaacadda KZYSLB ee Soomaalida magaalada St. Cloud. barnaamijkan ayaa waxaa garab socda barnaamij maqal iyo muuqaal ah oo isaguna aad ka daawan doontaan barta Aflax online. barnaamijkan muuqaalka ayaa waxaa loogu magac daray la kari cuntada raadiyaha Soomaalida ee magaalada St. Cloud. inta aan cuntada la samayn ayaa Ana, Angelica iyo Leila waxay aadeen suuqa laga soo iibsado qudaarta freshka ah ee ka soo go'day beeralayda deegaanka. kadibna waxa ay gudagaleen sidii ay u samayn lahaayeen cuntadii maanta oo ah nooca ay Soomaalidu u taqaano muufo iyo sidaasoo kale ku samaynta qudaarta laga soo iibiyey suuqa. waatana Ana oo sharaxaysa cuntada maanta. waxay tiri soo dhaweynta kadib waxay noo sheegtay in maanta la samayn doono muufo, qudaar iyo farmaajo. waxay sheegtay marka hore in qudaarta la isticmaalayo ay tahay basasha cagaaran, barbaroonida, ansalaantada, reexaanta, yogurka iyo tuunada. waxa ay kaloo jira ayay tiri farmaajada loo isticmaali doono in lagu samayn doono muufada iyo sidaasoo kale xawaaji iyo basbaas ayaa waxay ka mid noqon doonaan waxyaalaha la isticmaali doono. iminkana waa tana Angelica oo iyaduna inoo sharaxi doonta nidaamka la marayo ama loo maray cunto samaynta maanta. Angelica ayaa waxay sheegtay in marka ugu horeysa qofku uu ku bilaabo inuu iska dhaqo gacanta iyo cuntada si loo hubsado nadaafadda cuntada loogana ilaaliyo waxyaalaha qatarta gelin kara qofka caafimaadkiisa. marka koobaad waxa ay tiri waxaanu samaynaynaa waa in aanu burburinaa digirta, waxaana ku xigta in la sameeyo ama lagu daro qudaarihii kala duwanaa oo la sameeyey. waxay tiri marka ugu horeysa yogurtka ayaa lagu shubaa, waxaana lagu shubaa barbaroonida, reexaanta, toonada iyo xawaajiga. laakiin intaa ka hor waa in aanu jarjarnaa baroonida. waxaanu isticmaalnay ayay tiri midabyo kala duwan sida jaalaha, cagaarka iyo guduudka. kadibna markii dambe toontii iyo reexaantii ayaa lagu daray. dhammaantoodna waxaa la iskula shubay baaquli weyn, waxaana lagu daray sidoo kale yogurtkii iyo dhammaan qudaartii la diyaariyey iyo xawaajiyadii iyo basbaasigii. haddii aad jeceshahay ayay tiri waad ku darsan kartaa basbaas dheeraada inta aad jeceshahay. qaar inaga mid ah ayay tiri waa ay jecel yihiin in ay basbaas dheeraada ay ku darsadaan cuntada. waxayna tiri sida loo sameeyo waa in labo loo kala jaraa muufada, kadibna gudaheeda lagu guraa qudaarta sida idinka muuqato muuqaalka. marka ugu horeysa waxaad ku ridaysaa ansalaatada, kadibna waxaad ku shubaysaa farmaajada, kadibna waxaad gudaha ugu guraysaa qudaartii oo markaasi lasoo hagaajiyey oo idil. mar kale ayaa waxaa ku soo noqday Ana oo inoo sharaxaysa waxyaalaha ku jiray cuntada maanta aynu samaynay, gaar ahaan xagga nafaqada. Ana ayaa waxaa inoo sharaxday in cuntada maanta la kariyey. waxa ay sheegtay in cuntada ay ahayd cunto karin fudud, waxaana jira qaar ka mid ah tallaabooyinka ayay tiri loo sameeyey cuntada oo aad weydiisan kartid caruurtaada in ay kaala qayb qaataan. waxaa sidaasoo kale aad bedeli kartaa qaar ka mid ah qudaarta la isticmaalay maanta oo qudaaro kale ayaad adigu naftigaaga ku darsan kartaa ama wixii aad jeceshahay. tani waxa ay tiri waxa ay ahayd cunto maanta dhammaystiran oo hagaagsan, waxaana ku jiray dhammaan waxyaalaha uu qofka u baahan yahay.
tani waxay ahayd cundho dhammaystiran ayay tiri ana oo ka hadlaysay nafaqada kala duwan ee ku jirta cuntada la sameeyey. waxaa ku jira ayay tiri 4 ka mid ah 5 waxyaalood ee laga rabo cuntada dhanka nafaqada. xagga qamandiga waxaa ku jiray muufada aan isticmaal, caanaha dhinacooda waxaa ku jiray farmaajada iyo yogurtka, halka borotiinkana ay ku jirtay digirta. xagga qudaarta aanu isticmaalaynay iyo midabyada kala duwanna waxaanu ka helaynay bay tiri fitamiino iyo mineraalo kala duwan oo laga helo qudaarta aan isticmaalaynay, waxaana ka mid ahaa sidaasoo kale basasha cagaaran, ansalaatada iyo barbanoonida. aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin inaad nagala soo qayb gashaan barnaamijkan muuqaalka ah oo ku saabsanaa samaynta cuntada. wanigoo axmed ah iyo dhammaan bahda jaamacadda gobolka Minnesota, xafiiskeeda extensionka gobolka Minnesota iyo idaacadda KZYSLB waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo. jirkaagii waxaan ahay laga